kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin baddaawadayaal ku soo dhawaada qodobo door ah oo muhiim ah ayaan ku wadaa halkan waxaana ka mid ah mid ka mid ah xubnaha ku jira aqalka koongareeska dalkan Mareykanka haweeney ah oo sheegtay in ay riixayaan sharci ka dhana Soomaalida Suudaanta iyo South Sudanese kuba in ay soo galaan wadankan Mareykanka waxaynu ognahay arrintan inay ku soo aadeyso saacado kadib markii sharci anfariir ah uu ka soo baxay maxkamadda sare ee wadankan Mareykanka taasi oo awood buuxda siisay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump iyo dowladdiisa doonistii ay ku rabeen inay ku baabi'iyaan dadyoga soo galootiga ee sharci doonka ah kuwa horey u sii jooga halkan ee muddada isaga sii shaqaysanaya TPS-yada haystay iyo sidoo kaleeto kuwa green card-rada haysta ee sugaya ayaguna in ay sharciga dalkan Mareykanka qaataan xaaladda wadanka Mareykanka ee dhinaca socdaalka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa tan iyo xukunka inta u yimid madaxweyne Donald Trump waxa ay ka sii dhaadhacaysaa gebi aad halis u ah isla markaasina aan marnaba u jixinjixeenin dadyoga soo galootiga ah wadamada kala gedisan ee caalamka ee ay colaaduhu iyo dhibaatooyinka ka holcayaan sida Soomaaliya ayaa dadkoodu halkan ay imaanayeen oo ay ka helayeen deganaanshiyaha iyo in ay ku noolaadaan wadankan oo ay magangelyo ka helaan haatanse waxaasi oo dhami isbedel ayaa ku yimid sida aad arkaysaanba cilmi waare ayaa gobolka Indiana waxa uu kaga jiraa dhinaca khadka cilmi waare waa suxufi isla markaasina wax ku daabaca amaba dhinaca tabinta wararkiisa aad kala socotaan cilmi waare media markana wuxuu igu warrami doonaa arrimaha immigrationka saameynta Soomaalida iyo cabsida arrintan ay leedahay cilmi oo soo dhawo ugu horreyntii oo ku soo dhaweynaya marka xiga bal haweeneydan haddaad ku boodid warkeeda xubin ka mid ah aqalka koongareeska dalkan Mareykanka ee sida gaarka dhowr wadan u sheegtay sharciyo ka dhan ah inuu koongareesku riixayo sidii Soomaalida aysan u imaan lahayn wadankan waa mahadsantahay Sahray waan ku mahad celinaya horta xildhibaanadan magaceedu waxa la yiraahdaa Nancy Mace waxa laga soo doortaa gobolka South Carolina waana Republican xildhibaanadan waa xildhibaanadii bishii hore tiri dadka koongareeska soo galaya waa inay noqdaan dad ku dhashay Mareykanka waliba sawirka Ilhaan Cumar ay soo qaadatay xildhibaanad kale oo Baramila Jayapal la yiraahdo oo India ku dhalatay iyo xildhibaan kale oo isaguna India ku dhashay marka waxay tiri sidaan ognahay koongareeska Mareykanka qofku haddii uu wadanka banaankiisa ku dhashay xitaa uu ka mid noqon karaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo kaliya ayaana noqon karin qof wadanka dibadiisa ku dhashay marka waa xildhibaanadii horta bishii hore hadalkaasi soo jeedisay oo tiri dadka koongareeska ka mid noqonaya waa dad Mareykanka ku dhashay inay noqdaan halkii dad wadanka dibadiisa ku dhashay ay noqon lahayn maxaa yeelay daacad uma ahan wadanka Mareykanka ay tiri hadda marka waxa ay shalay soo qortay haddana mar kale waxa aan soo saarayaa ay tiri sharci dhinaca immigrationka oo dadka Soomaaliya ka yimid iyo Suudaan ka yimid iyo waliba South Sudan looga mamnuucayo inay Mareykanka yimaadaan waxay tiri dadka Ameerikaanku waxa ay muddo badanba ay daawanayeen magaalooyinka ku yaala wadamada midowga Yurub taasi oo ay qalad noocan oo kala ah uu ka dhacayo ay leedahay dad badan oo soo galooti ah ayaa loo ogolanay marka waxay leedahay waxaan joojinaynaa ka hor intii aysan too late noqon oo arrintan aanan ka daahin waa inaan joojinaa dadka wadamadaasi nooga imaanayo waxay sidoo kale leedahay waa in aan ka hormarinaa danta wadankeena danta wadamada kale iyo waliba safety-ga ama badqabka dadka Mareykanka muwaadiniinta Mareykanka waa inaan ka hormarinaa sidaas darteed waxay leedahay ma jirto wax nooga muhiimsan ayna arrintaasi sidaas darteed waxay tiri waa inaan joojinaa deganaansho la'aanta aan soo dhoofsanayno macnaha dadka aan keenayno wadankeena deganaansho la'aan ayay ka dhalinayaan ayay tiri marka inaan iska dhigatirna arrintaasina waa inaan joojinaa ayay tiri calaamadaha digniinaha ee soo baxaya oo aan arkaynana waana sidoo kale inaanan iska indhatirin ayay tiri inaan marka aan raali gelin ka bixinno ayay tiri danta wadankeena inaan mar kastaba ka hormarina danaha kalena waa inaan marka arrintaasi aan joojino marka sida muuqata waxay leedahay waxa aan diyaarinayaa sharci dadka Soomaalida ah South Sudanese iyo waliba Suudaanba looga mamnuucayo in Mareykanka ay soo galaan marka hadalkaasina hadal fudud ma ahan xildhibaanadan xitaa waxa jirta ayada iyo Trump waa isku dhaceen hadda bishan gudaheeda gudoomiyaha gobolka South Carolina xubno isu sharaxay ayay ku jirtay maadaama marka Trump aysan taageero ka haysan booska ugu dambeeya ayay ka gashay oo haweeney kale oo Trump uu taageeray ayaa ku soo baxday oo November doorashada gudoomiyaha gobolka South Carolina u tartami doonta
waa tahay arrintan waa arrin aad iyo aad maaragtay u leh cabsi marka la eego waxyaabaha dhacaya gudaha waddankan maraykanka oon la dhayalsan karin maxkamaddii sare ee waddanka maraykanka ee qaybtii cadaaladda ah ee ka madax bannaaneed qaybta fulinta oo dowladda ah baa hadda waxa ay meel marisay intooda aqlabiyadda leh ay ku meel mariyeen madaxweyne Donald Trump in 350,000 oo dad heetiin ah waddankan laga musaafirin karo TPS haystay 61,000 dad ka badan oo dhinaca kaleeto iyaguna ah dadka Suuriyaanka ah wadamo kaleeto tobanaan ah ayaa jira ayaa la leeyahay waa sida Trump uu ku soo galayba waxaad ogtahay ololihiisa doorashada markay soo bilaabanaysa waxaa jira cabsi iyo dhibaatooyin fara badan oo uu mar walbaba lahaa waxaan kala hortagi doonaa dadka soo galootiga ah gacan biro aan ku qaban doono hadda wuu hirgeliyay inta badan waxyaabihii uu rabay maantana waad arkaysaa tooreydii uu dadka ku qali lahaa waxaa u soo feeyey maxkamadda sare maraykanka arrintan saameyn intee la eg bay Soomaalidu ku yeelanaysaa si gaar ah haddaan u eegno waa mahadsantahay Sara horta sharcigan temporary protected statuska wasaaradda amniga gudaha maraykanka ayaa bixisa 1990kii ayuu Congressku uu sharcigan dejiyay waxaana loo dejiyay dadka wadamadooda dagaalada sokeeye ay ka jiraan ama masiibooyinka dabiiciga ah ay ka dhacaan waxaana la siiyay 12 wadan sidaad arkayso oo Soomaaliya ay ku jirto 12kaasi wadan ayaa la siiyay sida ka muuqata marka temporary protected status si ku meel gaar ah ayaa dadkaasi waxa loogu ogolaanayaa Mareykanka inay joogi karaan oo aan laga masaafurin karin isla markaana ay ka shaqaysan karaan waxaana la siiyaa 18 bilood ayaa wadan kasta la siiyaa 18 bilood marka ay ka dhacdo wasiirka amniga gudaha ayaa xaq u leh inuu dib u eego uu yiraahdo war dadkan wadankii ay ka yimaadeen xaaladiisa ma wanaagsanaato ma lagu celin karaa mise laguma celin karo hadda Syria kala dawlad ayaa ka dhalatay 6,100 qof ayaa ka joogta Mareykanka oo hadda maxkamadda sare ay tiri wadankoodii ha lagu celiyo Haiti waxaan ognahay dhowr sano ka hor dhulgariir ayaa ka dhacay waa tii ra'iisul wasaarahoodii la dilay kooxa gaangisa ayaana hadda wadankaasi inta badan maamulo oo xitaa ciidamada nabad ilaalina oo dawladda Kenya ay hogaaminayso waa tii la geeyay marka 350,000 oo qof ayaa hadda maxkamadda sare dadka ay amartay in la masaafurin karo ay tahay arrintaasi Soomaaliduna marka dhinac ayay ka soo galayaan Soomaalida iyaga waxa ay ka dhacday TPS oo dad ilaa iyo 500 oo qof ilaa 700 oo qof lagu qiyaaso in ay haystaan TPS-ta waliba meelo kala duwan oo Mareykanka ah jooga sidaas darteed marka maadaama bishii March ee hadda saddexaad ee la soo dhaafay 17deedii Soomaalidu ay TPS-ta ka dhacday looma cusboonaysiinin waxayna ka mid yihiin wadamo dhowr oo sida hadda Myanmar ay ka mid tahay Ethiopia ay ka mid tahay oo ay ka dhacday oo wali aan loo cusboonaysiin marka maxkamadda sarena sahray 9 garsoore waxaan ognahay in la leeyahay waa 9 garsoore ee maxkamadda sare laakiin 3 xubnood oo Trump magacaabay 4 sano hore oo madaxweynaha ahaa ayaa ku jirta Amy Coney Barrett iyo sidoo kalena Brett Kavanaugh waxaana sidoo kale ku jira ninka la yiraahdo Neil Gorsuch waxayna ka mid ahaayeen 6 xubnood ee shalay maxkamadda sare go'aamiyay in labadan sharci oo dhinaca immigration-ka oo madaxweyne Trump uu doonayay ay u dhaqangeliyaan maxkamadda sarena waxa uu bilaabmaa kalfadhigeedu 4 bisha October ee 10aad sanad kasta waxa uu ku egyahay dhamaadka bishan June aynu ku jirno mararka qaar todobaadka u horeeyo ayay gaaraan bisha July oo hadda la filayo todobaadka soo socda in sharciyo kale oo ay ka mid tahay sharcigii dhalashada ilmaha wadanka ku dhashay dhalashada miya hore laga siinaya oo madaxweyne Trump uu doonayay la filayo isniintaba inay go'aankaasi uu soo baxa iyadana oo madaxweynaha ay ku raacaan ama sida dastuurka uu dhigayo ay yiraahdaan dastuurka ayaa dhigaya waxa kamid ah cilmi haddaan ka dhex galo in labada waarid ee wadankan imaaday haddii aysan ahayn dad dalkan u dhashay ama haysan dhalashada wadankan Mareykanka ilmaha inta ay ku dhaleen haba ku dhalaan halka ay rabaan aysan qaadan sharciga dhalashada wadanka Mareykanka sida awal ay hore qofka markuu dhashabo hore looga siin jiray Mareykanka dhalashada waa sharciga hadda sida weyn loo sugayo garsooraasha maxkamadda sare ma dastuurkii ay baalmari doonaan oo madaxweyne Trump ay ku raaci doonaan mise dastuurka dhinaciisa ay xigsan doonaan waxay dhihi doonaan ilmo kasta oo wadanka ku dhashay waalidiintii sharci ha lahaadaan ama aysan lahaanin waa muwaadin Mareykana arrintaasina kulay go'aankaasi waa la sugaya laakiin arrintan TPS-ta marka hadda xubnaha aqalka cad gaar ahaan Stephen Miller oo ninka sharciyada madaxweyne Trump uu qoray isla markaana aan kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa la taliyaasha madaxweynaha ayaa shalay waxa uu yiri sharcigan markiisii horeba temporary ayuu ahaa sida magaciisa ka muuqata wadan kasta oo xaaladiisa ay wanaagsanaatana dadkooda waynu u celinaynaa sharcigaasina waan ka kansalayna
waa tahay arrinta marka haddii ay noqoto in dadka la yiraahdo xataa ha la fiiriyo waddamadooda ay deganaansho hadda ka muuqato waddamo badan oo dadka hadda xaakimyadan ay xugmiyeen inaan la siinin sharciga lana celiyo ayaa waddamadooda aysan deganeyn maxkamadda sare halkii loo laabanaya ayay ahayd oo xukuumada adag ee maraykanka markii laysku qabto meeshii loola cararay ayay ahayd haddii halkii loogula cararayo xukuumada ugu dambeyntii hadda qaylada ay kasoo yeertay maxaa la gudboon qowmiyadahaasi sida gaarka ah bartilmaameedku u noqday hadda walaa horta madaxa meel ka sarreyso la salaaxo mala ayay soomaalidu tiraahdaa maxkamaddii sare go'aankii ay gaartay racfaan waa laga qaadan karaa oo laakiin way adag tahay si kiiskaasi looga guulaysto maxkamado fara badan ayaa lasoo maray maxkamadda racfaanka ayaa la tegay maxkamadihii hoose ayaa arrintan soo ansixiyey marka dambena wax kasta oo lagu murmo maxkamadda sare ayaa loo gudbiyaa maxkamadda sarena markaasi go'aan ayay ka gaartaa marka meel ka dambayso oo loo laabto ma jirto marka waxa ay noqonaysaa dadkan in hadda ay waddamadoodii dowladda maraykanku ay dardargeliso sidii ay dib ugu celin lahayd marka arrinta kale ugu weyna waa arrinta kale oo xadka oo iyadana kolley aan u tegi doono oo shalay maxkamadda sare ay go'aan ka soo saartay marka maadaama hadda laba waddan ay maxkamadda sare ay tiri TBST waa laga joojiyey waddamadan kale oo hadda sida Venezuela ay ka mid tahay oo Ethiopia ay ka mid tahay Myanmar ay ka mid tahay Soomaaliya ay ka mid tahay South Sudan ay ka mid tahay maxaa laga yeeli doonaa iyagana ma tilaabadii oo kale lagu dabaqi doonaa maadaama aan ognahay hadda Sudan oo kale in dagaal uu ka socdo South Sudan xaaladeedu waa degan tahay Myanmar military ayaa gacanta ku haya Ethiopia dhinac ayaa khilaaf uu ka jira laakiin inteeda badan waa nabad marka sida muuqata waxa ay dowladda Maraykanku hadda ay leedahay marka sharcigan maadaama markii horeba uu ku meel gaar ahaa 12kaasi wadanna la siiyey waan celin karnaa wadan kasta oo aan u aragno in dadkiisa dib loogu celin karo waayahay sidaad sheegtayba arrinta kaleeto muhiimka oo meesha ku jirto waxay tahay sharciga Trump awoodda u siiyey in dadka marka ay yimaadaan xuduudda Mexico darbiga weyn ee Trump uu dhisay ayagoo taagan awal la ogolaan jiray inay iska soo gudbaan oo la yiraahdo gudaha wadanka ku xareyso sharciyada ama qaar dadka inta waqti yar la xiro la iska soo deyn jiro markii sharci yaqaan iyo loo qabto hadda tii meesha way ka baxday waxa la leeyahay qofka markuu darbiga soo istaago ayaa la dhageysanayaa haddii lagu qanci waayo ama loo arko waxa uu ka hadlayo wax macquul ah inaysan ahayn si rabaan ay ka yeeli karaan in la iska celin karo oo aanba loo ogolaanin inuu wadanka soo galo diidmadana halkaas banaanka lagu siinayo marka oo xaakimyada xataa 9 midkood uu aad ugu ololeynayay Samuel ninka la yiraahdo Samuel Alito uu yiraahday qofkii albaabkaaga soo garaaca xaq baad u leedahay inaad ku furto inaad u diido labadaba marka bal sharcigaasi asna noo gudmar sahra horta waa run markii madaxweyne Trump xilka uu la wareegay horta gabi ahaanba xadka waa uu xiray hadda ku dhawaad 2 sano uu xilka hayo ma jirin qof wadanka soo galay sharci marka waxaa jira federaal ah oo qofka ciidan Maraykanka haddii uu cagaha soo dhigo inuu xaq u leeyahay in magagelyo la siiyo wadankana uu sii joogi karo inta ama magagelyadiisa asylumkiisa lagu ogolaanayo ama laga diidayo laakiin hadda waxayba tahayba qofku isagoo dhinaca xadka Mexico joogo ayaaba albaabadu waa ay xiran yihiin cid loo ogolaanayo in ciidan Maraykanka ay cagaha soo dhigto maba jirto qofku markuu darbiga ka xageeyana xuduudaadii maba ku jiro xuduud wadan kale ayuu joogaa marka macnaheedu waxay tahay qof loo ogolaanayo ma jirto sharcigan Trump waxa uu isku dayay 4 sano hore sanadkii 2021 maxkamada ayaa ka diiday marka maxkamadda sare ayuu yilay ilaa ay xilligaasi marka hadda markuu Trump yimid ayuu mar kale dib u dardargeliyay in sharcigiisii maxkamadda sare ilaa ay intaasi hor yeelay waliba Biden intuu xilka hayay in mar kale sharcigiisii ay maxkamaddu dib u fiiriso marka dib ayaa loo fiiriyay maxkamadda sare 6 kamidana waxay ogolaadeen in dadku inta aysan dhinaca xuduudda Mexico ay joogaan la yiraahdo maba albaabkaba laga xirto oo aan laga furin oo aanba loo ogolaanba si aysan xuquuq u yeelan in ciidan Maraykanka ay cagaha soo dhigaan oo inta dhinaca Mexico ay joogaan gabi ahaanba loo diido oo la yiraahdo ma idii ogolin wadankan inaad soo gashaan ee halkiina ka laabta waa tahay cilmiga waxaa jiro in sidoo kaleeto wax saddexaad oo ku saleysan uu jiro xukun saddexaad oo ku saleysan uu jiro dadka haysta green cardka ama deganaanshiyaha wadankan Maraykanka oo haddii dambiye ay galaan banaanka ay u baxaan
aanan loo ogolaanin inay soo galaan gudaha waddanka Mareykanka oo isla maxkamaddu ay ogolaatay taasi laftarkeeda sidee bay khatar u leedahay xukunkaasi ku salaysan gaar ahaana dadka soo galootiga dabcan soo galootiga loogu talagalay green cardka lagu xalaaleysanayo in waddankan aysan sharciyada baasaboorka kaleeta aysan qaadan ama loo diido sahray arrintaasina waa ay jirtaa dad ayayba ku dhacdayba in qofku haddii uu Mareykanka wax dambiya uu ka galay in haddii uu safro ay waaxda immigrationka ama ciidamada xuduudaha jooga eraboorada aysan u ogolaan inuu dib ugu soo laabto waddanka Mareykanka gudihiisa arrintaasina dowladda Mareykanku waxa ay sheegtay in aysan doonayn dad dambiye ka galay Mareykanka in ay mar kale u ogolaato inay waddanka ay dib ugu soo laabtaan arrintaasina waa arrin halis ah iyadoo arrintaasi ay jirto ayaa haddana dadka qaar maadaama hadda baasaboorka Soomaaliga uu travel ban uu saaran yahay dad fara badan oo Soomaali ah ayaa waxaa jira in ay doonayaan inay waddankii u safraan marka waa adag tahay waad marka hore aad baxayso qof juuq ku dhahaya ma jiro laakiin marka aad soo laabanayso immigrationku waa uu kugu dhigi karaa maadaama aad booqatay mid ka mid ah waddamadii travel bank uu saarnaa dadka Soomaaliyeedna inta badan travel documentiga ma dalbadaan oo waqti ayuu qaataa baasaboorka Soomaaliga iyo green cardka ayay ku baxaan marka arrintaasina saameyn ayay ku yeelan kartaa haddii qofku uu dambi galayna waa iba ka sii daran tahayba waa dadka aan raadinayna ayaa lagu leeyahay waana lagu diidayaa in waddanka aad dib u soo gasho haddii aad ka baxday markaasina waxaa laga yaabaa airportka in inta lagugu xiro dib lagugu tarxilo waddankaadii oo laga yidhaahdo waddankaada dib ugu laabo kuma ogolin inaad dib ugu soo laabato Mareykanka cilmi waara waxaa jirta in qaar ka mid dadka uu ololeeya arrimaha qaxootiga soo galootiga dadka laga tirada badan yahay sharci yaqaanada ku jira Congress-ka aan iraahdo sharci dejiyaasha ku jira Congress-ka ee xisbiga Republican-ka ka tirsan dhammaanba ay si isku mid ah u ololeynayaan oo aan laga jiifantanay intii xukunkan uu soo baxay muxuu tari karaa dadaaladooda maxay ka bedeli karaan maxkamadda sare go'aamadan way isku dayayeen in muddo waxaa jiro hay'adaha soo dhaweeya dadka qaxootiga ah sharciyo kala duwan ayaa xitaa garsoorayaal ay u ogolaadeen oo yiraahdeen dad waxaa jiray Trump markii uu maalintii la dhaariyay xitaa tikidhadooda ay u jarnaayeen in Mareykanka la keeno waxaa xitaa la yiri dadkaasi maadaama hantidoodii ay iska iibiyeen oo ay diyaar u ahaayeen in Mareykanka ay yimaadaan dadkaasi ha loo ogolaado tiro yar ayaa loo ogolaaday xitaa maamulka Trump waxaa muuqata amarkii maxkamadaha hoose ama kuwa federaalka ka soo baxayay inay iska dhigatirayaan oo maamulku uusan arrintaasi wax dhaga uusan u dhigayn oo uu tiisa wato marka waxa muuqata arrintaasi horta go'aankan maxkamadda sare waxba kama bedelayso laakiin weli dadaalkooda waa ay sii wadaan in dadka qaxootiga ah loo ogolaado Mareykanka gaar ahaan kuwa la ansixiyay oo la approve gareeyay tikidhadoodana ay u jarnaayeen oo caafimaadkii wax kasta loo dhameystiray in loo ogolaado inay Mareykanka yimaadaan laakiin aad ayay u yar yihiin tirada dadka qaxootiga ah ee Mareykanka yimid ilaa iyo Trump markii xilka loo dhaariyay marka laga reebo dadkii cadaanka ee South Africaanka ah oo madaxweyne Trump uu waddankan keenay laakiin qaxootiyada kale ee wadamada kale ka imaanayay tiradoodu waa tiro aad u yar oo la tirin karo ilaa iyo Trump markii uu xukunka la wareegay oo loo ogolaaday in gudaha Mareykanka ay soo galaan waxaa jiro cilmiyo waana su'aasheeda ugu dambayso ku sii deyn doonaa waxaa jirta in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay xuduudaha ka soo gudbeen waddankan Mareykanka inay joogaan qaar badan oo kamid ah inkastoo loo diiday sharciyada ama ay ka tageen ama ay maaragtay xabsiyo ku jiraan ama qaar la masaafuriyay haddana waxaa jira kuwo yar oo nasiib u yeeshay in loo ogolaado sharciga waddankan Mareykanka I-94ka ayaa qaarkood haystaan su'aalo fara badan ayayna soo weydiiyaan dadkaasi I-94rada haysta ma saameyn doonaan xukuumadan iyo waxyaabahan isbeddelka ayay kula tahay ee maxkamadda sare iyo Trump sharciyadan haatan ay wadaan dardargelinta maadaamaysan weli dhalinyaradaasi helin ama ay xareysteen oo muddaba ay ka qaadatay inay helaan green cardka ama sharciga deganaanshaha waddankan Mareykanka sahra horta I-94ku waa kusug wax la yiraahdo kale I-94ka qofka marka la siiyo sharci rasmi ah ma noqoto waxaana loogu daraa sidoo kale car social security oo ay ku shaqaysan karaan oo kaliya marka waa laga laaban karaa maxaa yeelay qofka haddaan green cardkii aan la siinin dadka qaarkood iyagooba green card 2 sano ah la siiyey ayaa markii 2 sano uu ka dhaca kadib haddana lagu dhagaa marka maamulka Trump wax kasta ayaa ka suuragal ah adigoo I-94 lagu siiyey waddankana ka shaqaysanayay ayaa laga yaabaa in lagu qabto hadda waxaan arkayay warbixin aan xalay aqrinayay nin asal ahaan ka yimid Mexico oo Texas haweeney cadaan ah ay iskuursadeen oo sharci leh
green cardkii waa loo approve gareeyey maalintii interviewga uu lahaa green cardkii markii uu xareeyay kadib interviewga maalintii uu lahaa ayaa la xiray ilaa iyo hadda xabsi ayuu ku jiraa xitaa waxaan arkayo gurigii ay deganaayeen ayay iibisay si arrimaha sharci qareenka lacagta ku baxaysa ee isaga bixiso welina xabsi ayuu ku jiraa dad fara badan ayayna ku dhacdo interview inta loogu wacay green cardka halkii interview ay ka sugayeen ICE oo ku sugaysa ay ugu tageen xaruntii immigrationka kadibna halkaasi laga xiray marka Trump maamulkiisa wixii isaga uu damco ayuu sameynaya mararka qaar xitaa sharciyada soo baxaya oo garsoorayaasha federaalka iyo maxkamadaha hoose ay soo saarayaan inuusan dheg u dhigeen ayaa muuqata oo wixii isaga la gudboon oo kaliya uu sameynayo marka qatartaasi markastaba waa ay jirtaa amaba green card interview u ballansanaaw amaba hayso waraaqda I-94ka markastaba qatarta ah in xilli kasta lagu qaban karo markastaba waa ay jirtaa aad baan kugu mahadcelinayaa cilmi waare waxaana jeclaan lahaa sheekooyin cajiiba ayaa arrimaha socdaalka iyo migrationada ku duugan oon dadka la wadaagi doonaa haddii allah uu dala ogolaado toddobaadyadaan soo socda si ma aragta xaaladda isbeddelka ku yimid ee socdaalkii dalkan maraykanku ay dadka si hufan uga ma aragta ha qabeelaan haddii allah uu dala ogolaado inta ka horeysa aad baan kuu